weli inta ku jirtay baarista buugaag amase inta waxbarashada ku jirtay oo aad raadinaysa assignment ma ku wareegtay amase ma ku aragtay arintan oo kale. halkan sida u jeedaan buug ayaa magaciisa ku qortay kadibna waxa ay soo baxay buugii magaciisa marka ku dhuftayna wuxuu u keenay suuqa wax lagu kala iibsado online-ka ee Amazon. buugan sida u jeedin wuxuu ugu soo qorayaa lacag $219 ah. buugan waxa laga yaabaa inay ku jirto ama baahi weyn oo qabo inaad wax ka barto, laakiin waxaa jooga Soomaaliya wayna adag tahay inaad gato buug. haddaba maanta cashirkan waxa ku soo qaadan doonaa sida ugu fudud ee buugaagta Amazon aad ku heli karto si free ah. markale ku soo dhawaada X Technology. anigana waxaan ahay Maxamed Xirsi. sida hore aan ku sheegay cashirkan maanta waxa ku qaadan doonaa sida ugu fudud ee lagu soo dejiyo buugaagta lacagta ah ee aad ku aragtaan baraha wax lagu kala iibsado online-ka sida Amazon iyo Alibaba. waxa laga yaabaa buugaag inay halkaas ku jiraan, buugaagtaas oo adiga aad u baahan tahay laakiin aadan lacagtii awoodin amase aadan joogin meel access u ah ina buugaas gaatid si dhaqsan lagu keeno. haddaba maanta waxaan ku barayaa website aad ku degsan kartid buugaag badan oo lacag adduunka ah. waxaan ku baraaweyn doonaa buugan la yiraahdo Practical Math Business Math Procedure. buugan waxa uu ku jiraa website-ka Amazon. marka aad galo oo aad ku dhufto linkiga koowaad ee Amazon waxa inta igu soo qormaya in buugan oo aad ku soo degsan karo laptop ama aad ku soo degsan karo ama aad ku isticmaali karo telephone amase iPad aad ku isticmaali karo oo bishii amase oo kiran yahay lacag caadi ah loo kala gadan karo. waa lacag qaali ah, buugna kama bixin karo aniga ahaan. sidaas darteed waxa aan ku sheegayaa website-kan aan furto meesha URL kala geliyo. halkan ayaa waxa gelinaysa halka kore ee la geliyo website-da ayaa waxa gelinaysa gin.lip.rus.ec kadib enter ayaa leedahay. kadib halkan ayaa ku noqonaysa magaca buugga ayaa soo qaadaya oo ah Practical Business Math Procedure. copy ayaa soo leeyahay, right click control C amase control C ayaa soo qaadaya. halkan ayaa soo dhigaya buugga magaciisa, paste ayaa ku soo leeyahay, kadibna waxa uu dirayaa search. buuggan waxa uu soo saarayaa qoraaga buugga markuu wuxuu soo saaray Practical Math magaca buugga waaye McGraw-Hill. waa meel buugaagta adduunka lagu sameeyo oo caan ah. halkan waxa waaye sanadku uu soo baxay 2008 asaga oo 2008 ah iyo 2007 ah. page-ka inta ka kooban yahay, luqadda uu ku qoran yahay, inta size-kiisu yahay, PDF inuu yahay iyo in kale. sidaas ayaad ku heli kartaa buuggan. marka sida uu yahay waxa ku dhufanayaa magaca buugga. waxaan rabaa midkan oo ah edition 9. marka sidaas ugu dhufto geeskan bidixda waxa ka soo baxaya magaca buugga, kadib click ayaa ku siinaysaa magaca buugga. in yar kadib haddii internetkaaga uu speed leeyahay sidan ayuu ku soo qabanayaa. kadib waxaa leedahay halkaas kore ee ku qoran tahay get. kadib waxaa ka arkaysaa inuu soo bilaabayo downloading. sidaas ayaa lagu degsadaa buugga. wax yar ayaa sugaya inta uu internetkayga speedkiisu leeyahay ayay ku xiran tahay 42 MB na weeye. marka uu computerkaaga dhameeyo amase oo internetkaaga uu dhameeyo soo dejinta faylka waxa ku arki doontaa meesha aad website ama browser-ka isticmaalaysid meesha uu ku save gareeyo download. halkan aniga waxa ii dhamaaday buuggii. marka click ku dhufto ama ku wada dhufto double click siiyo waxa ii soo baxayo buuggii. buuggan waxa lagu magacaabaa Practical Business Math. waa buug aad iyo aad ugu fiican xisaabta dhankiisa, waana lacago dhanka website-yada Amazon iyo meelaha lagu kala gado. haddii aad ka hesho cashirkan fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid, like na saartid cashirka, siina share garee si ay dadka kale uga faa'iideystaan.